وسؤال تأويني ذلك يا إسكالي ولي برامج كهذا بقولك ورك يا داونيسان maalintii labaad waxaa xiran wariye Cabdimaalig Muuse Coldoon oo muddooyin ku dambeeyay ku sugnaa deegaanka maamulka Soomaalida ee Ethiopia halkaas uu tagay markii uu isbeddelku ka dhacay gudaha Ethiopia gaar ahaan maamulka Soomaalida ee wadanka Ethiopia madaxweynihii dawlad deegaankana la xiray madaxweyne cusubna deegaankaasi loo soo magacaabay wuxuuna ahaa shakhsi aad uga soo horjeeday hab maamulkii hore ee uu hogaaminayay madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar hase yeeshee wariye Cabdimaalig oo maalmihii u dambeeyay ku sugnaa gobolada iyo deegaanada kala duwan ee deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa lagu xiray magaalada Gaashaamo jimcihii sida wararka aan ku helnay haddaba sida xarigiisu u dhacay xaaladiisaba waxaan wax ka weydiinaynaa Axmed Warsame oo kamid ah waxgaradka Gaashaamo telefoonka ayuuna hadda toos ugu jiraa Axmed haddii aad maqli karto bal sida xariga Cabdimaalig uu dhacay فاهمين نجسي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا أدود ما سنتين. حرج عبد المالك شبه عمر فر عبد المالك وانين أسود شيء ذا ديجان كجاشامو. ديجان كالصومالي ذا وح لسقوها يشتغل مركز شو عاصمة دول كله هذو قبل كلمات كتير زين تاعي. أفكر مركز ولا قبل كتير زين وشجع ديجمود كتير زين تاعي في سلوك قرطة. marka wuxuu ka soo jeedaa gobolka Jaro degmada Gaaramo ayuu ka soo jeedaa meelaha dega ninka Cabdimaalig hadii aan faafaayo deegaanka dhawaan buu yimid bishii October anigu jijigaan joogay markuu yimid deegaanka aad baa loogu soo dhaweeyay madaxweynaha ayaa dalbaday oo yiri degmada Gaashaamo laga soo qaado oo gaari u diray fiican baa deegaanka soo dhaweeyay waa nin wariye ah oo la yaqaano oo xuquuqda dadka magaranaysa u dooda iyo dadka aan dadkooda dhiiban karin iyo dadka fikradahooda iyo aragtiyahooda kala duwan soo teediyo weeyaan oo meelaha magaranaysa ay ku aboon yihiin ama meelaha ay u dirayaan gaasiya marka ninkaas waa ninka weeye anigu shaqada meeshii laga qabanayo waan joogay ilaa la saddex maalmood meelahaas u joogay Gaashaamo markii ugu horeeyay uu degmada yaan waa la kulmo waan wareystay wuxuu igu yiri ilaa 3 week baa laga yaabaa in degmada joogno degmada baaxadeeda iyo population-ka ku nool iyo taariikhdeeda iyo waxyaabahaas laga yaabaa inaanu magaranaysa aanu ka warbixino oo aanu ogaano marka anigu shaqada waan joogay markii la qabanayo meesha laga qabanayo waan joogay waxa la wareysanaya dad shacaba oo dumar iyo waxyaabahaas u badan iyo odayaal marka iyadoo meeshii lagu urursan yahay oo goor ilaa bankii bashaxnimo meelahaas ay tahay ayaa waxa yihiin ciidamada iyo booliska kadib waxay dhahayn joojiya markii ay joojiyeen way u yimaadeen maxaa jira waxay dhahayn wararkan iyo waxa duubaysan bulshada dawladda iska horkeenaysan hadallada maqlayay bay kamid ahayd kadib waa la kaxeeyay 3 wariyo kala la socday wax dhibaato looma geysanin isaga waliba shirka hore gaariga ayaa la saaray 3 wariye kalena dusha ayaa la saaray halka laga qaaday waxa la yiri aniga ma raacin laakiin xerada new booliska la geeyay adigu waqti kadibna waxa loo gudbiyay xerada makalakaliyaga ciidanka militariga dawladda federaalka Ethiopia ayaa loo gudbiyay baa la yiri anigu galabta waxaan u tagay salaadkii maqrib meelaha markii la eedaamiyay anada ciidanka militariga aan ugu tagay iyagoo fiican isaga fadhiyo iska qayliyo sharaab iyo biyo iyo waxbaan u geynay waan wareysanay ay dhahayn dadka iyagii u gudbiyay inaan wax dhibaato aan naloo geysan aan iskala joogno arkayguna iska dhamaan doono telefoonadii eelkoodii xasiin siiyeen u gudbinay marka intaan warka magaranaysa ka haynaa waa intaa weeye waxa kale aan haynaa markii aanu la xogeystay cidda warkan lagu qabanayay wariyaha iyo wariyaasha kale la socday warka uu ka yimi nin la yiraahdo Axmed Koore oo dawladii hore Cabdi ilay ahaan jiray oo walaalkii ragii heegada ugu waaweynaa heegada hogaamin jiray ahaa inuu subaxii la soo hadlay xubno reer Gaashaamooda ninka afayeenka baarlamaanka degmada Gaashaamo inuu la soo hadlay inuu yiri anaga waxa ii sheegay oo maantadan ii sheegay afayeenka degmada Gaashaamo nin Muuse la yiraahdo ayaa adiga igu yiri waxa ila soo waaya ii wad Axmed waxa ila soo
waxay la soo hadlay buu yidhi ninka aniga afhayeenka ii sheegaya ninku Axmed Koore la soo hadlay baa maanta aniga ii sheegaya anigaygan waaya marka ninka ayaa ka dambeeyay ku yiri wuxuu yidhi Axmed Koore subaxnimadkii hore la soo hadlay shalay intii aan la qaban ka hor wariyaha wuxuu yidhi waxa la qabanayaa nimanka wariyaasha ee degmada Gaashaamo jooga waa la qabanayaa ciidanka makalakaliyaga qabanaya haddaad tihiin qolada maamulka degmada Gaashaamo ka caawiya si loo qaban lahaa intaas uu igu yidhi waaya waxaan ku weydiiyay Axmed marka hadda ciidanka federaalka ayaa gacanta ku haya Cabdimaalig waa sidaas oo ma ciidanka federaalka ayaa ku canya xerada ciidanka aniga ugu tagay salaadka maqrib markii la eedaanayay si fiican baa loola dhaqmayay wax dhibaato looma geysan way iska sharaabayeen way iska qaylinayeen wax dhibaato ma haysanin marka halkaas aan ugu tagnaa ma weydiiseen ma isku dayna la xiriirtaan madaxda deegaanka maamulka Soomaalida Ethiopia sida madaxweynaha iyo xubnaha kale oo aad weydiisaan bal waxa lagu haysto wariyaha iyo wariyaasha kale la socda anigu horta shakhsi ahaan cid aan dee magaalada la xiriiray ma jiro laakiin sida warkaa la sheegay ninka Axmed Koore leeyahay warkiisaan ku hayay dee raggii waaweynaa hogada hogaamin jiray markii uu yiri waa nimankaas la qabanayaa ka caawiya in la qabto warkaasi inuu isaga uun ka yimi waliba uu sheegtay teetal khaldano aan lahayn oo yiri anuguna waxaan ahay la talinta madaxweynaha aan ahay yiri ninkaasina aanan ku ogeyn inuu la talin madaxweyne yahay markaas barnaamij isaga laftiisu waxaan ugu haysanaa inay ahayd iska horta shacabka iyo dowladda inuu ninkaasi waday oo warar aan kililkuna ogeyn oo magaraysa kililka dowladda deegaanka laga soo laabsaday oo ciidamada federaalka uu isagu toos ula xiriiray inay ahayd un baan u fahanay hawshana ninkaasi watay iminkana waxaa laleeyahay isagii bay taagantay ku kooban tahay markaan ugu horeysanay dee xogaha aanu helay waxaa laleeyahay Cabdimaalig wuxuu doonayay in ay war ka soo sameeyaan oo ay soo baaraan dhacdooyinkii ka dhacay Gaashaamo iyo deegaanada kale gobolka Jarar dad badan la sheegay in lagu laayay marka arinta ma jirtaa ma idin kala hadlay Cabdimaalig aduu odayaal uu wareystay baa jiray wuxuu ka wareysanayay taariikhda degmada Gaashaamo xilli hore inay xitaa gobol ahaan jirtay bay odayaashu u sheegayeen saaxadda degmada u sheegayeen dowladdii hore iyo siday u dhaqmi jirtay u sheegayeen dhibaatooyinkii ay ka geysatay deegaankii u sheegayeen inay badan isbedel fiican samaysay xorriyadul qowl la sameeyey ummadda si fiican dhaqmay waxyaabahaasay ay dunyeen oo dhan ay uga warramayeen Axmed Warsame aad baad u mahadsan tahay waxa uu ka mid yahay odayaasha magaalada Gaashaamo telefonka ayuuna igu warramayay isagoo jooga gobolka Jarar gaar ahaan deegaanka ama degmada Gaashaamo isla arimahan Cabdimaalig ayaynu ku guda jirnaa waxaanu la soconaa in isbedelka ka hirgalay deegaanka Soomaalida iyo guud ahaan Ethiopia uu horseeday lana sheegay muddooyin ku dambeeyay in xurriyadii hadalka dib ay u soo laabatay oo dadku ay xor u yihiin in ay aaraadooda gudbiyaan warbaahintuna ay si madax bannaan oo xor ah uga shaqayn karaan deegaanka Soomaalida iyo guud ahaan waddanka Ethiopia haddaba arrintan saameynta ay ku yeelan karto isbedelada ayaan eegi doonaa iyo dadaalada ku aadan in dib loo soo celiyo xurriyadii hadalka waxaa telefoonka markaan aan aadayaa dhinaca iyo jigjiga guuleed Axad Sheekh oo ka mid ah aqoon-yahanada deegaanka Soomaalida telefoonka ayuu hadda toos ugu jiraa guuleed waad la socotaa arrintan xariga Cabdimaalig waxaana la filayay in isbedelkan hirgalay uu horseedo in la hormariyo xurriyadda hadalka arrintan maxay ka dhigan tahay arrintan xariga Cabdimaalig Muuse Coldoon haddii aan kaaga warramo horta Cabdimaalig Muuse Coldoon waa shakhsi Ethiopiana waa saxafi Ethiopiana oo ahaana waxaa jirta waxa uu waddanka ku soo noqday oo madaxweynaha uu xasuumad ka helay 2 Oktoobar sanadkii hore markuu madaxweynaha xasuumadda uu ka helay muddo badan ayuu jigjiga joogay hawshiisii saxafinimo ee lagu yaqaanay ayuu ninkaasi waday
wax dembiya ama qalalaata uu wadina ma jirin si lagu yaqaanay ee samafalnimada ayuu hawshiisii uu watay 16 bishan oo shalay ah ayuu gaashaamo tegay dabeetana waxa uu ku warhelay in Cabdimaalik Muuse Coldoon waa la xiray xariga Cabdimaalik Muuse Coldoon waa mid aan horta aad u cambaarayn haddii aan nahay shacbiga dowladda deegaanka Soomaalida waayo Cabdimaalik Muuse Coldoon waa shakhsi taariikh dheer ku leh dowladda deegaanka Soomaalida ku nool oo xilligii dhibaatooyinka fara badan waa nin aad u dooday oo ka qayb qaatay kicitaankii dowladdii dhibta badnay ee dadka dhibta u geysatay waana sababaha keenay in uu madaxweynuhu ugu yeedho jigjiga si ilaa iyo halkii uu ka soo galay oo gaashaamay waayahay guleed telefoonka ayaa ka go'ay dib ayaan qadka ugu laabanayaa si bal halka uu uga sii wada hadalkiisa waxaa dhinaca kale soo baxayay muddooyinka u dambeeyey in qabaa'ilka qaar ee deegaanka ay ka cabanayaan habmaamulka deegaanka Soomaalida ee Ethiopia iyada oo aan weli isbeddelku si baahsan u gaarin guud ahaan bulshada ku nool maamulka Soomaalida ee Ethiopia iyada oo dadka qaar ay iyo siyaasiyiintaba ay soo bandhigayeen arrimo ku saabsan in musuqmaasuq iyo culaysyo kaleba ay deegaanka ka jiraan inkastoo weli aanay mas'uuliyiinta maamulku si rasmi ah uga hadlin waxaan ku laabanayaa markan dhinaca iyo guleed waad ogtahay oo isbeddelka guud ahaan Ethiopia ka yimid ama ka bilowday oo deegaanka Soomaalida soo gaaray waxyaabihii muddooyin ku dambeeyay lagu bartay waxay ahaayeen in dadku ay xor yihiin aragtidooda ay si xor u dhiibtaan warbaahintuna ay si madax bannaan u shaqayso marka xarigan Cabdimaalik miyaa lagu micnay karaa in mar kale culayskii xurriyadda hadalka lagu hayay ee Ethiopia uu soo laabtay طبعا waa lagu macnayn karaa waayo waxa saxaafadda hortaaba Ethiopia markii isbeddelka uu dhacay la ilaaliyo saxaafadda hortaay in siyaasadii la furfayo nidaamka xisbiyada badan la qaatay oo aan dibna leysi caburinaynin marka xarigan Cabdimaalik Muuse Coldoon waa mid intaaba ka hor imanaya oo waayo shakhsi aan dhibaato wadin qalalaaso wadin bulshadii kicinaynin in xabsiga la iska dhigo oo iyadoo aan wax dambiye lagu soo oogin la iska haysto waa qayb caburinta kamid ah marka dabcan waa la oran karayaa in ay horseed u tahay ama ay tusayso in qaybo weli kamid ah dowladda Ethiopia aanay weli la qabsanin in ay saxaafadda hor tahay oo qof waliba ra'yigiisa uu xor yahay oo qofka haddii aanu dhibaato wadin aan la iska soo xiran karin guleed waxaa la leeyahay ciidanka federaalka ee militariga ayaa gacanta ku haya markii horena ciidamada liu booliska ayaa soo qabtay haddiiba uu ku sugan yahay Cabdimaalik kuna sugnaa deegaanka Soomaalida oo maamul uu ka jiro ciidamo ay leeyihiin maxay tahay sababtan loogu gudbiyay ciidanka federaalka ee militariga Ethiopia wallahi waa adigu markii la qabtay xataa laftirkeeda waxa naloo soo sheegay iyadoo maamulkii degmada meesha ka jiray ama gobolkuba aan wax wara ka haynin in Cabdimaalik qabashadiisa uun la bilaabay marka taas waxa ay tusaysaa in maamulkii meesha ka jiray gacan dhaaf dowladda dhexe ay ku hayso oo ay qofkay doona xidhayso marka taas waxay noqonaysaa in waxay ka macno tahay oo kale meesha dowladda kama jirto waayo meesha maamul baa jiray maamul gobol baa jiray heerarkii kala duwanaa ee maamulkaa jiray qofkii dambi lagu hayo ila qofkii mar haddii aanu dagaalamaynin ama aanu qof sidanin ama aanu dad rabshad waday oo guruuga aanay ahayn oo amniga khalkhal ku ah waxaa ku filan hal askariyo loo diro oo jeelka geeyay xitaa haddii uu dambi geysto marka wallahi ma garanayo anigu sababta keentay qof shiciba oo aan dhibaato wadin in guutooyin ciidana inta loo kaxayso in la soo xidho oo la xidho marka waa adigu waa qayb waxay tusaysaa dowladdii TPLF ee shalay tagtay oo kale inay sideedii u yar eg tahay ficiladeedii guuleed Axad Sheekh oo kamid ah aqoon-yahanada magaalada Jigjiga oo telefoonka iigu waramayay ayuu kaasi ahaa